شوي إيبا سو نقضي هدناه سو عرارة تي وينيد بان هيا قنبل دريه ويناي سو عرارة حمدية سويا حمداي سويا دقاي والله عاود دقا هيدن قرحية سو عرارة سيسي حنا يا روتي وشقتك ياي سو عرارة رضا هيسا شير قراية دي نقدا يو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله عليكم والله أنا سيسي حنا يا بالي توسية بل كعا إذن كنا كعا توصي إذن كنا دي عشاهي سوقلا سي شير قراية تورة warkii u weynaa warkii oo kooban oo koombe ku jira maanta hadal iyo muraara dilaac ayaan u taaganahay gabadhii walaasheen ahayd xogteedii baan idin siinayaa soo caraara si aad ula gurmataane si aad ula gurmataan oo ugu hiilisaan hadalkii oo faahfaahsan baan idiin helay oo idiin keenay marka inaan idinla wadaago weeye idinkalama seexan karo xaqiiqiyan wax aad yaabi doontaan baana jira marka sheergareeya barnaamijka insha allah هاي والله سريرتا كجرا أنا قلنا إذا كان دين توسيني دام بوالي توسية بول قبتي كمان نحيا كعكع أرورتينا وان بحياي خير بينون نغنيسا إن شاء الله تعالى تشير قرية وان دين كجارسينا يا إن حكموجا حاجة بيا اللي حكموجا أي حاجة بيا إلهي سبحانه وتعالى مسيبها ينجهيو إلهي مسيبها ينجهيو إلهي دباتها ينجهيو إلهي دتك حقها تصو إن ولا لو حسوكر لي خطري والدين وداقة يشهر قراية إن شاء الله والله أرين وين بسوكر ودي وإننا نوجين مركا محوها يدانا وين الدين وداقو مركا إن شاء الله تعالى سوق دوادا أرنتها مرقدة هي سوء لسي أنا مرة دويت كبحي ولي بس يسيحنا يا ربنا الدين وداقو محوها فيديو جمال كستات كتورتين الله خير هاي تسيو حكتي ودن بان صوها لاي أنا ودي ودن ما ولي لكن وحي أمهم سنة بان صوها لي وحي ماشي كتيرة waxa gabadha walaasheen la xiq dhabanayso marka waxa weeyaan waa inaad ogaataan waxa maanta tusma la xiq dhabanayso maanta cadowga gacanta ay u gashay iyo wuxuu yahayba waa aynu ogaano maadaama inaan wax hore ogeyn inaynu ogaano weeyaan inaynu muxuu ahaayey la socono weeye waxa dhacay in waxa weeye inagu aynaan noqonin dad wax lagu soo dhex tuuro uno yaabo oo waxa ceebta daawada waa inaynaan noqon laakiin waa inaynu sii ogaano waxa dhacay iyo hadday dhacdaba waxa soo socon doona marka xaajadii iyo duuduuban ayaan soo helay run ahaantii waxa safiye helay waxa dhibaatada ku dhacday waxay tahay meeshay ka bilaabatay waxa hadda haysta waxaysan sheegi karin waxa weeye wax oo dhan waan idin siinaya ma garanaysaan waxa weeyaan marka inaad idinla wadaago waan ku khasbanahay anigu dadkan ku tashanaya ila waa idinka dadka xumaanta ka dhidhiyaya waa idinka waxa maanta doonaya waliba gabdhaha Soomaaliyeed inay ogaadaan baa loo baahan yahay gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada jirta ee cadawga ah oo inay ogaadaan baa loo baahan yahay waliba wiilasheena intii fiican Ilaahay inoo fiicneeyo meel aynu uga soconaa ma jirto iyagu unbaa ina huran laakiin waa inaad ogaataa godadka qodan ee la doonayo halista in lagu rido waliba gabdhaha qurbaha jooga masiibo adduun baa dhacday masiibata ugu xun weeye in naftaada lala wareego xoolo lala wareegaynu arki jirnay guryo la dhacaynu arki jirnay qof lala wareego oo noloshiisa la yiraahdo inta kaaga hadhay geerina ku diri maayo ku dili maayo nololna kuma ogol qof lagu yiraahdo isagoo nool lama arag lamana maqal nolol lamana arag lamana maqal qof isagoo kaliya ku yiraahdo noloshaada anaa kule inta nolosha ka hadhay anaa kula taagan caawa marka waan idin bilaabayaa horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin oo dhan waan idin salaamayaa barnaamijka sheer gareeya
aniga wad iguma idaan baran xasarad iguma idaan baran inaan idiin keeno been iguma idaan baran inaan fiyu raadiyo iguma idaan baran inaan social media lacag ka qaato ma fahmaysaan wallahi xoogayga iyo cagahayga wixii aan ku shaqaystaan cunaa ma fahmaysaan laakiin waxaan rabaa inaan wax bedelo oo aynu noqono dad walaala ah dhabarka isu jeedin laabta isu jeediyo mar walbana waan idinku idhaahdaa waxa mar walba igu kalifaana waxa weeyaan wax ilaahay igu abuuray oo ah jacaylka ummadayda ma fahmaysaan marka waxa weeyaan walaalo dhibaata jirta walaalayaal dhibaatada dhacda qofka dadku waxbay ka bartaan waa inuu qofku wax ka barto waxa weeyaan marka waxaan hadda fiidiyoogii markii aan duubay meel walbuu gaadhay gabadhii aynu u dirnay fariinta Safiya Tusma ahaydna wuu gaadhay dadkii ehelkeeda ahaana wuu gaadhay isaga ehelkiisina wuu gaadhay sidaa darteed waxa la ila soo xiriiray wax aad iyo aad murugadeeda u xambaarsan oo kuwa isaga ugu xiga ee ugu dhow ay ila soo xiriireen oo sax ah oo ceeb aan ahayn yani wax beena waxa weeyaan marka Safiya Tusmo 3 sano ka hor ayaa la guursaday si xalaal oo sharaf leh oo laba qabiil u kala doontay ayaa loo guursaday nin ay islahayd maanta ka meedho wixii ku soo maray oo guurkaaga ku deg ayay guursatay magaca ninka guursatay Safiya waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun ayaa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun waa father of 7 children caruur leh oo reer leh qaahir uu joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan Safiya maanta iyada ku tacabtay sida qofka loogu tabco ee ilmahaaga aad ugu tacabteed u korisay jaamacad u geyso ayay ugu tacabtay inay maanta xoolo iyo wax walba iyo inay dhoofiso iyo inay kaxayso ay samaysay wiilkaas Safiya iyadu maanta furaash xariira iyo raaxa ah oo jacayla ayay goglatay ay rabtay inay goglato guri yagleelato laakiin iyadu may gafana guursabay istiri laakiin furaashkii ay dhigatay mas baa ku hoos jiray mas ayaa ku hoos jiray iyadu waxay tiri 2 sano ku noolaa laakiin 3 years bay hel ku noolay 3 sanadood sanad bay ka jirtay waxaan rabaa xaqiiqda jirta inaan idiin sheego Safiya markii la guursaday arrintaasi dhacday Safiya horta way xanuunsantay sideeda ma aha she is not herself markii iyadoo hadda arrinta ay ugu timid ay ka timid Mareykanka ay ka timid ee xagga tagtay waxay u tagtay cilaaj Safiya waa la sixiray way xanuunsatay waxa way nolosheedii dhan baa lala wareegay telefoonkeeda waxa lagu xidhay wax la yiraahdo team view buu ku xidhay Safiya iyadoo Mareykanka joogta ayaa la maamulay iyadoo Mareykan joogta baa waxa la ogaa nin wiilka Hargeysa jooga inuu soo wax qofka wacay inuu arko qofka soo message gareeyay inuu arko buu awood u yeeshay Safiya waxa lagu sameeyay in wax kasto ay haysato la ogaado oo telefoonkaaga halka laga daawado not only TV iyo waxa telefoonka caadiga ah haysato noloshaada caadiga ah shaqada hadaa tagayso wax kasta hadaa tagayso waxa weeyaan Safiya waxa la wareegay waxeedii oo dhan nolosha iyadoo ku jirta ayay maanta waxay u timid inay ilmaheedii xanuunsanayay caruurteedii ka soo tagto ay istiraahdo muxuu ahaayay iscilaaj ninkeediina wali isqabaan laakiin noloshu aad u xunto hel tahay Soomaalidan garanin Safiya markay xagga tagtay waa la dabiibay quraan baa la saaray dadkii wax xoogaa way fiicnaatay culimadii way ula hadleen waxa lagu yiri fargal iyo bahar ay sidatay bixi fargalkaana bixi waxa weeyaan waxna looma qarin safarka fargalka iska bixi ninkaana ha u dhawaanin telefoon yuursan ka soo wici caadi baa loogu sheegay Safiya wax kasta ayuu ogaatay maalmay ahayd Safiyadeedii oo ay jacanigi waxa la yiri noqotay qof si hurdo ka soo kacay oo kale noloshay ku jirtay waxay ku jirtaba ay la yaabtay maalmo yar oo kooban Safiya iyadoo sidii ku jirto wali cilaajkeedii waxay u socdaan way ka farabaxsatay wixii ku dhacay oo haddana waxay gacanta ku dhigay wiilkii awalba gacanta ku hayay telefoonkeedii iyo fargalkii iyo waxyaalihii oo dhan martibay lagaga celiyay Safiya waxa la saaray xitaa waardiye inta la saaray baa la yiri social media inay gelin iyadoo Safiya saaran waardiye oo la hayo ay dhalinyaradii haysay ku tiri waan seexanaya madaxa ay xanuunaya telefoonka intuu ka soo wacay buu ku yiri dhageyso inaanan arrinta dhacday ee Snapchat-ka la geliyay shaqo aan ku lahayn waa inaad wacdo nin waxa ku soo wacaya shiina culay markay la soo waco wareysanayay lahayd wiilkaasi waa bari isaga ku yiri qof kasto Safiya wacay oo wareystay ninku isaga shaqo ku leh waa inaad wacdo arrinta beenisa lagu yiri Safiya wallahi inaanan been idin sheeganiyo billahi beeni baa lagu haddaad wacdaan lambarkeeda idin siiyo
ومغلى يا وحا كلها هدليسان أولا يكون ديليت غريسان مالي هداد باني دي كانت أي دونيسان صفية تلفون كيدا عاوة هدا وعدان إتوبيو جوغا هورتا ويلكي وو بحسداي ديرير دبو جوغا ويلا رير جيبوتي بو لا جوغا وانا لا قبن لها مانتا صفية ددك iyada ka hortaagan صفية hadda waxa weeye bilkos waxba laga hayaabaa lagu yiri صفية noloshaada wajaale maalintu ka talaabay wuxuu yiri wajaale maalintu ka talaabay wuxuu yiri waan ka baxay xuduudda Soomaaliland waxaanan ku sheegayaa noloshaada inaanan geerina ka dhigayn nolol la aanan ka dhigin waligaan anigu aan kuleeyahay waxaad samay kartaana ayna jirin waa lagu falsafiyo loogu hanjabay xuduudii Soomaaliland waan ka baxay dirirda buuna joogaa Cabdi Ciise dirirda buu fadhiyaa Safiya cid walba oo wax qaban lahayd iyada ka hortaagan hadday dadkoodu hadli lahaayeen ama asxaabteedu hadli lahayd oo waxa jira sheegi lahayd iyada odhanaysa anaa ku beeninayo soo fadhiisanaya way telefoonka inta lagala hadlo buu odhanaya wallahi waan soo dhigaya hadduu qof hadlo anigu caawa arrinta aan qarxinayo de isagu hadduu xiniyo leeyahay soo dhigo anaa qarxinayo caawa la taagani anaa qarxinayo caawa Safiya horta waxay ku jirtaa waa noloshaas dadka waraysanaya Safiya waa loo waxa weeye isaga ka dambeeya in iyadu cid wacato ama oo la waraysto u sheeg naaya haddii kale wallahi billahi tallahi waxa dhaca waa dadkii qofka waa inaad ku tiraahdaa ninkaasi wax alaala waxa uu shaqo ku leeyahay dambiili ma jirto horta Safiya say ninka u difaacaysa waa saa ma fahmaysaan Safiya caawa lafteeda quraan baa lagu hayaa caawadan wallahi inaanan beeridin sheegin ma fahmaysaan waxa weeyaan marka isagii wax walba wuu la socdaa dadkiisina wuu u sheekaynaya gabdhihii way xanaaqeen hablihii isaga la qabiilka ahaa maanta isaga inankaas ciida gale way xanaaqeen gabadhii damiir kasta way xanaaqday facebookiisa eega wax walba wuu daawadaa dadkana ma aqbalo laakiin Safiya hostage baa lagu haystaa Safiya waxa lagu yiri hadda ugu dambeyntii finally $20,000 haddaad bixiso kilibka waan tuuraya kilib baan ka hayaay $20,000 iga siiso haddii kale publican soo dhigaya Safiya waxay u leedahay any minute nolosheedu way dhici kartaa inay destroy noqoto telefoon baa dhegta loogu hayaa Safiya telefoon baa dhegta loogu hayaa waana lala soo hadlaya waxa la leeyahay arkee Somaliland wuu ka baxay hadday dil oran lahaa ninka qabta oo maanta la oranayo tigtiga la hadli lahaa oo Ethiopia la hadli lahaa Soomaaliya qaban lahaydna Safiya iyada ka hortaagan ba oo lama hadlayo yaan la hadlin yaan juuq la oranin yaan la sheegin yaan la waxaynin ilaa ay intaan idinka tagay waan hadlayay wallahi ilaa ay intaan idinka tagay inaan salaad tukaday mooyaane waan hadlayay been idin ma sheegaye waxaan la raadinayay xaqiiqda dhabta ah inaan soo helo oo wax been idin keenin ajuusad yahay xun ee gabowday muxuu ahay baa lagu caynaya haddaad oran weydo sida ta kugu dhacda waad arkay wallahi noloshaada dhan waa destroy garaynaya billahi calaykum Soomaaliye maanta ninka xalaashi gabadha ku guursaday ee reerkeedii ka doonay ee adeeradeedii iyo aabayaasha walaalaheed ka doonay ee sharafta ku guursaday ee ay ku tabacday ee ay wadaagtay inay tiri haddaad mid la dhaafiyay ka dhigatid oo yisi biyahaas yisi aad ka dhigatid xariir ka dhigtid mid unbaa kugu qabsanaysa ay leedahay Safiya marbu unsigeeda iyo cadarkeedu baxayay Safiya waxay gacanta u gashay wiilan diin iyo dhaqantoona ilaalinay bay u gashay dadkan maanta dambaalka u dilayeen ee telefoon inay kula hadalna mooyaane baxsay ba horta ninkaasi maalintu xadka ka baxay wajaale buu bareeray wajaale markuu ka baxay xadkiisa ayuu horta bareeray markii hore dhan wiisnabayay aad baad u mahadsantihiin Safiya waa inaad horta jacaylkii galabta aad muujiseen soo muujisaan 800 qof baad ugu daawanaysaan waa inaad soo muujisaan oo wadnaha u soo tuurtaan horta Safiya horta wadnaha u soo tuura inaynu garab taaganahay Safiya u soo tuura haddii inay nagu xisaabtanto oo wax ku dhici kara jirin Safiya u soo tuura inay sharafteedii iyo gabadhnimadeedii hagogan tahay Safiya u soo tuura inay tahay hooyo Soomaaliyeed Safiya u soo tuura inay maanta hankeeda doonaysay inay wali way yar tahay waa inan yar ay qof dumar oo yar weeye ay maanta ku raaxaysato wiil muxuu ahay gayaankeeda sharafta ay guursatay Safiya u soo tuura inay iyada ahayn khayrkeeda inay guursatay oo Ilaahay calaf uga dhigay laakiin ayna ogeyn waxa ku hooseeya garanaysa u soo tuura inay maanta ay haysato full support from Somali community
full support inay haysato ha loo soo diro Safiya gabadha jeclaan lahayd caawaaga in lagu xidho telefoonkaaga nin Soomaaliya jooga adigoo Ingiriiska jooga inuu ku maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo Mareykan joogta in lagu maamulo gabadha jeclaan lahayd maanta adoo hooya in lagu hostage gareeyo this is the reality ay ku nooshahay Safiya ay ku nooshahay ma garanaysaa wax loo dul qaadan karo iyo wax qof bini aadan ku hadli karana ma aha ma garanaysaan waxa weeyaan marka Safiya waxa weeyaan dad ka dhiidiya may waayin dad u hiiliyana may waayin xaqiiqdi markaan soo helay dad maanta gobonimada reerka ninkaasi ka dhashay wax ka qabtana lama waayin laakiin iyadii baa xanuunsan oo maskaxdeedii caadi ahayn oo go'aan gaari karin oo isu haysata inay qaflad ku jirto oo la leeyahay waa lagu dilayaa oo lagu leeyahay waa lagu ceebaynayaa oo la leeyahay lacag keen $2,000 buu qaadanayay biilka believe or not $2,000 every single month Safiya baa lagu xujay inay jirto iyadoo Mareykan joogta imagine hooyada joogta Mareykan ee aan decision gaari karin because caafimaadkeedii ma joogin she is not herself maanta maxaa idinku lahaa si xirto ma jirin Safiya waxa weeyaan fargalka maanta aan xidhanaha loo xidha jacayl baana loogu xidha jaarka kaasoo kale ayaa jacayl loogu xidha jacaylkii fargalkii loogu xidhayna fargal sixiran buu ahaayay balaayo kala kulantay oo iyadoo joogta Mareykan la abiyuusay oo iyadoo joogta Mareykan la yiri intaasoo lacag bilowba soo dir oo iyadoo joogta Mareykan qofka wacaya iyo qofka ila hadlaysa muxuu ahaa iyo aniga adiga hadashay bal lahaa thank you jacaylkaad u muujisan Safiya thank you wadnihiina quruxda badan thank you jacaylkiina Soomaaliyeed thank you inaan maanta proud idinku ahayo qof xun aanan Soomaali uga calool go'ayn thank you inaanan oranaynin maxaa Soomaali iga dhaliyay waayo intiina soo wanaagsan baaba joogta thank you inaad maanta jacaylka muujinaysaan oo Safiya wada taageersan tihiin oo kama qurux badan soo qoraysaan ma garanaysaa thank you ina anaguna garbaha aan ku duulaya aad tihiin oo aan isku kiin halaynayaan oo dhaahdo qof xun haddaan arko inuusan nationkayga ahayn waxaad soo qoraysaan maanta yacnigii waxa yidi diila igeliyay maanta inaan idinkula soo noqdo waxa weeye haddaydan Safiya support tusi lahayn niyad kumaan soo noqdeen laakiin jacaylkii way daawatay maanta kilinkii way daawatay kiliibkeennii way daawatay jacaylkaad u muujiseen waa loo dira way daawatay Soomaaliya oo dhamina way daawatay Safiya maanta waa hostage soo maydan arki jirin qof la afduubay oo meel cadow ku hayso Safiya waa la haystaa waxa ugu daran qofku inuu ku qabsado waa inuu maskaxda laga qabsado caafimaadkaana lala tago Safiya burca loo qaaday believe or not burca la geeyay rusheeye iyo waxa loo geeyay dadka halka joogay ma garanaysaa Safiya maaha qof aynu oran karno why she did this why she didn't do that ma garanaysaa maanta wiilkan le 22 baan ka siisanayaa marwadaydii inaan ku fareexeeyo ee ay iga iibso ila waa ay iga iibso ma garanaysaa ay iga iibso de waxaan leeyahay warnayow 40 baan ku siinaynaa deena hor ima waa agreement kana la gal ha isku yaraynin 40 baan ku siinaynaa taariikhda Soomaalidana waan kugu qoraynaa 2020 wiil ciida gala ah ma garanaysaa oo Cabdi Ciise Cajuun la yiraahdo ayaa sanadkii nooca ahaa xaaskiisii intuu taa ku sameeyay oo fiidyo qaatay oo sidaa yeelay ayuu iibiyay Google-kaana ku geynaynaa si loo soo hele dee soo baxo agreement nala gal lacagtana 20 baan kuugu darnay aniga ka dilaalehe bariya aniga ka dilaalehe soo bax Soomaali horkeeno fiidiyogana nasi lacagtana qaado soo qora de loofka soo tuura miyayna sidaa ahayn sidaa miyaanay ahayn inuu inoo soo baxo miyayna ahayn de hayna yidhaahdo muxuu ahay gabadhan kala tage xaas uma aha maanta Soomaalida garanin waxa weeyaan kaa tagay waxna kaagamaan tagin kaa tagay waxna kaagamaan tagin marka waxa weeyaan waa gabadhaasi waxa weeyaan way furan tahay mar hore la furay warqadii way kala qaateen laakiin waxa weeye ballan buu ku qaaday baan idin idhi wuxuu wiilkii yiri oo qoran oo taala waxaan ballan kuugu qaaday waxaan kuugu qaaday inaan life-kaaga destroy gareeyo awoodda inta leeg yaasi waxa uu ka keenay xagee buu ka keenay awoodda inta leeg
miyaan ogeyn Soomaaliyiin ay nooshahay miyuusan ogeyn Soomaaliyiin ay nooshahay miyuuna ogeyn sawirkiisa la iigu maqayon Kenya sawirka waad aragteen dawaab ku jira ila social media laakiin waxaan rabaa mid qoraal ah oo qoray baan hayaa la ii keenaya ma haya la ii keenaya Soomaadan garanin marka waxaan ku idin sheegayaa xaqiiqada jirta waa taas isagu wuxuu isiri safiya un cunaha ku dhig waxa tira bahal la yiraahdo guduudane oo barigan gabadha yar ah ay ariga raaci jiray baadiyaha xoolaha laga ilaalin jiray guduudane marka neefku ma qayliyo haduu qabsado halka cunaha abu ku dhagaa uu la fadhiistaa dhiigu ka jaqa neefko baqtiyo buu sii daaya ma neefka dawacada iyo way qayliya guduudane lama arko ninkani marka waa guduudane gabadhan cunaha ku dhig buu isir cidina kuma ogaanayso Soomaaliya kuma ogaanayso waaye iyadii buu wuxuu gaarsiiyay heer ay isaga difaacdo oo ayna ka sheekay oo dadkii markay yiraahdeen waanu muxuu ahaayay waanu ka hadlaynaa ay diideen oo iyadu u diiday oo markii la yiri halala hadlo ay iyadu diiday ma garanaysaa nin wanaagsan baa dhalay aaba fiican baa isaga dhalo jooga Soomaalidu garanin ay wish aabana waan ku daba jooga inaan keeno iraado naxaar marite Soomaadan garanin Ciise Cajiin waa ku daba jooga inaan soo helo run baan idin sheegaya this is not joke absolutely this is not joke this is not just talk maaha aabahaas sharafta leh Soomaaliyeed waa keenaya isagana inaan iraado aabo di adaa dhalay adigu warka keen meeshan hadii Facebook la soo fadhiisto idinka soo dhex imanaya qofka wax sheegaya sharafta leh wax oge kugu xulaya dadka halkan uu ka imanaya isla markiiba telefoonadii dararag wixii oo dhan oo xambaarsan baaba soo qaadayba ma fahanteen walaalayaal marka Soomaali horta waxa jira waasaas tusmana love iyo jacayl iyo support ayaan u muujinaynaa waxaanu u sheegaynaa inaan sharafteeda waxba gaarin waxaan u sheegaynaa inay still tusma tahay waxaan u sheegaynaa inay tusma ahaan doonto waxaan u sheegaynaa wax ka qurux badan qabiilkay ka dhalato difaaca inay difaacayaan oo Soomaalinimo ku difaacayno waxaan u sheegaynaa inuu nafar nagala baxaynin qofkii damca tusmo inuu nolosheeda burburiyo no way inuu la tago ma garanaysaa inuu waxaan ka soo dhacaynin inuu isaguna qarsoonaado oo ceebtiisa la qariyo tusmana teeda la soo dhigdhigo ma soconayso banaankaas loo soo taxaya isagana telefoonkaaga inta la qaato oo ID-gaaga la qaato team view in lagu xidho adigoo jooga Jarmal baan anigoo London jooga ku ogaanaya qofka ku soo wacay ma garanaysaa TV-gayga shidanaysa hadaa doonto marka waxa weeyaan Soomaali bini aadamka waxa loo baahan yahay inayna degdegin gabadha dad baa caayay gabdhihii xitaa ka hadlay baan maanta galabta markaan idinka tagay waxa la igu soo taagereeyay gabadha la yiraahdo Hodar Cabdiraxmaan oo tiri dawladdu waxa ka qabato oo la wada caynayo war maxaa la isku caynaya ma xaqa hal cadeeyaan isku caayay ma cid baa la caayay war hooy waxa la yidin gurigiisa quraanada yahay dhagax ma tuuro ilaa Aamina Cabdillaahi oo sharaf lahayd oo hoboladii Soomaaliyeed baa la caayay oo dhashay Hodar Cabdiraxmaan war yaara bal eega heerka la marayo abiyuusku heerku maraya bal eega Somali woman abiyuuski meeshu marinaya bal eega gabdhihii hadlay ee yiri war yaara waxa weeyaan arrintan waxa laga qabto baa la soo caayay ilaa hooyadood baa la soo caayay ma garanaysaa maxaa lagu caaynayaa bal imika ma aniga maanta gabadha isaga la qabiilka ah waa aniga walaashay weey haddii iyada maanta wax lagu sameeyo anigu sidaas oo kale ugu qaylinaya u hadli lahaa way aragtaa waxa maanta ku dhacaya gabadh kasta oo Soomaaliyeed way aragtaa wax la qaadan karana maaha wiilkaas anagu maanu caayino aflagaadana noogama soo baxayso laakiin waxa xaqa ah waa la sheegaya we don't care qofkii ay tabayo social media intuu soo fadhiisto durbaana soo qaado xitaa ay ku soo buraanbo who cares ma garanaysaa laakiin anagu ma ogolin isbaaro gabdhaha Soomaaliyeed loo dhigto ma rabna gabdhaha Soomaaliyeed isbaaro in loo dhigto isbaaro no social media hadday noqoto meel la isku qabateeyo de anaguna xaqana soo dhigana social media yaa laga xigaa wixii dhacay oo dhan baan ka sheegaynaa social media yaa laga xigaa ma fahamtay qofkii gabaraya iyo qofkii baqaya iyo qofkii wax tira ay sheegaya runta sheegayn anaga sheegaya wallahi inaan waxba laga gabanay safiya arrinteedu Soomaaliya oo dhan inay gaadho weeye
bal soo tuura wadnaha safiye arrinteedu soomaali intay la egtay wayna ka garnaqdo shanta soomaaliyeed maanta soo ma joogo etoobiya oo kelilka shanaad ma joogo iga gaarsiiya dadkii kelilka shanaad bal ku taageeraya bahalka intaad garanaysaan oo dhan sheergareeya bilaahi calaykum waa inay diri dhaba ninka jooga ay gaadhaa ma fahanteen diri dhabiya jigjigaba waa inay gaadhaa iyo kelilka oo dhan waa inay gabdhaha iyo wiilasha joogaa ka dhiidhiyaan waxa kan waa in ninkan la soo qabtaa oo dambiilaha la soo qabtaa safiya haddayna hadli karin oo cod lahayn oo halkaa cunaha ha lahayo annagaa hadlayna cunahana lama hayo annagoo xoraanu dhalanay maanta soomaaliya haddii la tago fargal sixirana lagu guursanayo dee ma ogolin gabdhaha lagu guursadana waanu ka bixinaynaa ma ogolin ma garanaysaa adduunyada waxa ka jiraan la soo kacay waa waxaasaa jira ma garanaysaan wax la qaadan karo oo la odhan karo bini aadan ilaahay abuuray ayaa samayn kara maaha naagtaadii xaaskaagii because of money thank you so much thank you aad baan idinkaga mahad celinayaa saboodka safiya sabood garaynaysaan safiya waxaa loo dulaynayaa waa lacag nothing else markii horena waxa la 2,000 keen bishii buu bixin jirtay 3 sanay $2,000 bixin jirtay balaas inay ka rartay qaahira balaas inay noloshiisaba dhisto guri kirayso gaari u iibiso wax kasta u qabatay noloshiisii oo dhan ay saa u tabantaabisay caawana waxa la leeyahay waa inaad $22,000 keentaa waxaan kaa hayaa kiliib baan kaa hayaa wadhaasid mil kiliib baan kaa hayaa kiliib baan kaa hayaa maxay tahay naagtaad qabtay ee xalaasha lagugu meheriyey ee aad qabiilada ka doonatay ee wiiradka ka bixisay ee meherka ku mehersatay ee 3 sano aad qabtay ee xaaskaaga ahayd adigoo xalaal lagugu dhalay oo nasaba oo aabbahaa joogo sidee baad ugu odhan kartaa lacag baan kaa doonaya haddii kale waan ku ceebaynaya noloshaadaan burburinaya xaggaad adduunyada kaga nooshahay xaggeebad adduunyada kaga nooshahay xaggeebad ku noolaan doontaa ninkaa shaabad in lagu dhajiyo walaashiyey maanta aday kuu taala haddaadan ka hadlin walaashiisa la dhashayay ina ciise cajuun hadday adduunkada ku nooshahay walaalay ha saboorin dulmiga walaalka aniga wiilal baa ila dhashay gabadh inay xumeeyaanna ma ogoli wiilal baa ila dhashay inay gabadh xumeeyaanna ma ogoli wallaahi baanan ogolayn oo bilaahi ogolayn oo tallaahi ogolayn oo saboorayn walaalkay hadda gabadh soomaali ku xadgudbo saa waxaan ogay wuxuu galaa inay aniga ii imanayaan waxa uu isagu galo anay ii imanayaan soo maydan garanin walaalayaal soomaali haddaynu nahay waxa maanta inaga dhex socda waa inaynu ogaano waxyaalaha ina dhex imanaya yaqyaqsiga waa inaynu ogaano waa xaaskiisii markaasaa gabadh aan xaaraan ku tuman oo xaaraan gelin oo wixii ilaahay oggolaa samaysatay oo guursatay ayaa maanta waxay ku noosho kule faras baan saaranahayo noloshaydu anytime bay destroy noqon kartaa because of what my husband baa waxa igu haya why sabab waad guursatay waad iskala tagteen dee leave her alone maxaa lacagteeda u rabtaa shaqayso orodoo dad nin tahay ilaahay iimaanka kaa qaadi shaqayso maxay tahay waxaasi ma ku soo qaban karayo waa markaad soo dirtad iima soo baxayo I don't know waxa iga haya dadkan wallaahi way igu soo galayni maanta dhan lowdhin buu odhanaya markaan qofka soo qabto ma garanayo qofka markaan damco inaan soo qabto kamara fitaabto lowdhin buu odhanaya mana ii soo baxaysaan ma garanayo I accept your request laakiin iima soo baxayo qofka inaan soo qabto approve okay I did maanta dhan wuxuu odhanayaa adin dabeedna wuu go'ayaa
walaalayaal waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed qofka bini aadamka ah waydan waxaan u yeedhanayaa IT technician kos kamarada markaad ii soo dirtaan requestiga aan qofka taabto qofkii ma soo baxayo wuxuu odhanayaa adin maanta dhan waa sidii wax lowdin oo kala ah can you help me here halkan look this is adin request the camera approved bal in yar suga in yar cancel them is adding alla ciil badana ayay ciil badana wallahi billahi I can't do this ma garanayo why bal waa la hagaajinayaa inaan idin soo qabto ma garanayo waxa kamarada igaga dhacay ma fahmin anyway walaalayaal waxay la tahay inaad arrintii fahanteen aadna qurux badanna usoo qoraysaan realityga jirana waa kaa beenna anigu idinma sheegayo isagoo faahfaahsan oo deep downana waan idiin keenayaa dadka marka waxa weeyaan kamarada rabaa weli inaan hagaajiyo waxaan idiin sheegayaa marka okay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego qofkaan doonaya inaan soo qabto markaa requestiga soo dirtid telefoonkaaga sidaa u dhig saasaan kugu soo qaban karaa haddaad telefoonka saa u dhigtid waan kusoo qaban karaa hadduuse saa yahay kuma soo qaban karo so requestiga soo dhig telefoonkana saa u qabo waxa weeyaan markaa tafiye tusma wallahi aad baan idinkaga mahad celinaya inaad soo support garaysaan wallahi billahi bottom of my heart okay haddaan tijaabinayaa sug no answer soo qabanin okay add it says adding so